السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دواد ورد ميديا أو دورك معلومات لصور في أنه هؤلاء فرسمة هوذا وقام مغنين وحنو هالكن إذا كسر تبين دونا ورك وجودن بيجي إن جسوا جارية دلك إثيوبيا جارهان قبل كتكريجا إن وحنو إذا سو تبين دونا إذا مدى دولة الفدرال كدلك إثيوبيا oo soo bandhigay hub fara badan oo ay ka carareen kooxda TPLF gudaha magaalada Maqale sidoo kalena ciidanka dawladda federaalku waxa uu sawirro ku soo galay bartamaha magaalada Maqale halkaas oo ay ku muujinayaan inay magaaladaasi iyaga wali gacantooda ku jirto sida muuqaalkan dhinacayga ka daaran idinka muuqanaysaba ciidamada dawladda federaalka ee dalka Itoobiya ayaa waxay soo bandhigeen hub fara badan oo ay sheegeen inay ka carareen kooxda TPLF hubkani ayaa laga helay mid ka mid ah istoorada ama bakhaarada waaweyn ee ku yaalay magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega waxaana la sheegay in kooxda Tigreegu ay ka carartay hubkan oo noocyo kala duwan isugu jira sida tusaale ahaan lagu arkayo qoryo waqti hore la isticmaali jiray iyo qoryaha Soomaalidu u taqaan bari duleelka rasaasta baasukayaasha qoryo laftirkiisii bombooyin noocyo kala duwan iyo hub fara badan ayaa waxa laga soo saaray laba container oo bartamaha magaalada meel ku taala laga helay ciidanka dawladdu faahfaahin ay ka bixiyeen hubkan tiradiisa iyo noocyadiisa bal wax yar ay idin kala dhaxbaxo ጦር መሳሪያዎች አሉ ክላሾች አሉ በቁጥሩ በርካታ ያለ ነው ብሬኖች አሉ ስናይፐሮች አሉ ይበልጥ ደግሞ ከምንም በላይ intaasi hadaynu uga soo gudubno hubkaasi faraha badan ee dawladda federaalku ay sheegatay in ay ka qabatay magaalada Maqale hadii aynu u soo gudubno wararkii iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasi ka socday waxa la sheegayaa in Maqale ay go'doonsan tahay kadib markii ay cunaqabateen ku soo rogeen kooxda TPLF isla markaasina ay u diideen inay gaadiid ku galaan ama ka baxaan waxa kale oo la soo sheegayaa in ay dagaal ka socdaan magaalada hareeraheeda iyo sidoo kale meelo kale oo fara badan tusaale ahaan magaalada Aksum oo la sheegaya in shacabku ay dagaalamayaan ciidanka dawladda federaalkuna uu garan la yahay cid la dagaalamaysa iyo cidii shacaba isla markaasina ay ku dhex wareereen si kastaba ha ahaatee kooxda TPLF ayaa waxa la sheegay inay buuraha hoostooda shir jaraa'id ku soo qabteen iyadoo TV-goodana uu wali hawada ku jiro wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray aagaasi dagaalka ee gobolka Tigreega ayaa sheegay in kooxda TPLF laga saaray magaalada Maqale ay haatan ka dagaalamayaan deegaan sidaasi uga sii fogeyn Maqale ay gobolada iyo degmooyinkana dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ay ka bilaabeen dhawaan ay ahayd markii ay TPLF dhulka soo dhigtay diyaarad nooca dagaalka oo loo yaqaan Miiga oo ay lahaayeen ciidamada Itoobiya taasi oo la sheegay in ay howlgal ku jirtay kooxda TPLF oo haysato hub casri ah ayaa ku hubaysan lidka diyaaradaha iyo hub culus oo ay duurka la galeen maalmihii la soo dhaafay waxa la sheegay in kooxdani go'doon geliyeen caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale mana jirto wax gaadiid ah oo gali kara ama ka soo bixi kara sidoo kale magaalada Aksum ayaa dagaalo culus ay ka dhaceen maalinimadii shalay ahayd waxaana la sheegay inay dagaalamayaan dadka shacabka ee magaaladaasi ku nool iyadoo ciidamada Itoobiyana kala saari la yihiin shacab iyo cid la dagaalamaysa diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay inay dhowr meelood duqeeyeen hareeraha magaalada Aksum kooxda TPLF oo shir jaraa'id ku soo qabatay buur hoosteeda ayaa sheegtay inay guulo ka gaareen dagaalka ay kula jiraan ciidanka dawladda shir jaraa'id oo ay ka soo muuqdeen raggii ugu sarsareeyay kooxda TPLF sida madaxweynihii deegaanka Tigreega Debrecen ayaa laga sii daayay TV-ga Tigreega waxa cid kasta la yaab ku ah in kooxdan TPLF oo laga saaray caasimadda gobolka ee Maqale inay haddana wali isticmaalayaan TV-ga Tigreega walina baahinayaan xogaha dagaalka sida diyaaradii la soo riday iyo shirkan jaraa'id ee buurta hoostiisa lagu qabtayba tani ayaa muujinaysa in kooxda TPLF aan wali la wiiqin awoodoodii kaliya ay isaga baxeen magaalada Maqale sidoo kalena sawirkan idin muuqda waxa lagu soo bandhigay aan idhaahdee sirdoonka Itoobiya oo sheegin halka laga qaaday sawirkani kaliya waxay sheegeen in dhulka hoostiisa shir jaraa'id lagu soo qabtay afayeenka ciidamada TPLF Gabra Sadig oo warbaaxintooda la hadlayay ayaa sheegay in saddexdii cisho ee la soo dhaafay ay gubeen 11 taangi wuxuuna kaloo sheegay in ciidamada dawladda
dowladda dhexe ka gacan sareeyaan kadibna lagu soo xoojiyay ciidamada Eritrea. hadaladiisina waxaa ka mid ah dagaalku 3 goobood ayuu ka socdaa, ma aha mid sahal ku dhamaanaya siday u leeyihiin Maqale iyo meel hebel ayaan qabsanay, waa dagaal shacab. ciidamada militariga wadanka Suudaan ayaa la sheegay inay qabteen hogaamiyihii ciidamada maleeshiyada Tigreega oo sida uu qorayo wargeyska Suudaan Tribune. taliyaha ciidamada maleeshiyada Tigreega oo watay koox kale oo maleeshiya ah oo ahaa kuwii ciidamada militariga Itoobiya kula dagaalamayay gobolka waqooyi ee Tigreega ayaa la qabtay iyagoo isku dayay inay ka tallaabaan xuduudda Suudaan oo ay la wadaagto Itoobiya sida ay ku waramayso warbaahinta dalkaasi. hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega oo la qabtay ayaa lagu soo waramayaa inuu haystay lacag ka badan 90 milyan oo dollar, dahab aad u tiro badan iyo 2 gaari oo nooca raaxada ah. dhanka kalena haweeneyda afhayeenka oo ahayd baarlamaanka dalka Itoobiya kana tirsaneyd guddiga fulinta TPLF ayaa telefishinka dowladda dhexe ayaa la sheegay inay Khariya Ibrahim isa soo dhiibtay. Khariya waxay ahayd afhayeenkii hore ee golaha federationka dalka, waxaana Maqale ay u wareegtay xilligii turjubaada lagu sameynayay muddo kordhinta dowladda. Khariya waxay ka mid ahayd guddigii fulinta ee Tigreega, waxayna xilligaasi u wareegtay Maqale iyadoo TPLF dhankeedana ka soo jeedsatay. kadibna waxaa xilligaasi booskeedii lagu bedelay Aadan Faarax oo deegaanka Soomaalida ka soo jeeda. haddii aynu intaas uga soo gudubno warbixinadaasi dhinacyada kala duwan taabanaya, waxaanu ka cudur daaranaynaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo aanu hawada uga maqnayn arrimo farsamo. waxaan rajaynaynaa inaad noo cudur daari doontaan. intaasi ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee inaga soo gaaraya gobolkaasi Tigreega oo weli la leeyahay dagaaladii ka socday fari kama qodna, welina waxaa la leeyahay laguma kala adkaanin halkaasi, iyadoo oo maalinimadii shalay ahaydna ciidamada dowladda federaalku ay markii ugu horeysay sawirro ka soo direen magaalada Maqale ayna sheegeen inay halkaasi ku sugan yihiin. sawirrada ay ciidamada ku soo galeen bartamaha magaalada waxaa ka muuqanaya in ay taalada ay caanka ku tahay magaalada Maqale ay halkaasi ku sugan yihiin ciidankaasi sawirrada soo galay. ciidanka dowladda ee ku sugan magaalada Maqale ayaa la sheegayaa inay dhinacyo badan ka go'doonsan yihiin maadaama diyaaradihii ay isticmaali lahaayeen hawada ay u isticmaali lahaayeen aysan haysanin meel ay maraan kadib markii kooxda TPLF ay la soo baxday qalab cusub oo liiska diyaaradaha ah, isla markaasina ay soo riday miig howlgal ku jiray. marka cabsi badan ayaa laga qabaa baa la leeyahay isu socodka iyo in hawada la isticmaalo oo kooxdaasi TPLF buuraha saaran ayaa khatar weyn ku ah. sidoo kalena wax gaadiid ma geli karo oo magaalada Maqale iyo dhulka ku hareeraysan waxaa gacanta ku haya kooxda TPLF oo weli ka dagaalamaysa. ma jirto markaasi wax saada ama zaanada oo u gudbi kara magaalada Maqale. ciidamada ku sugan ayaana la sheegayaa inay go'doon ku jiraan. markii hore ciidamada dowladda ayaa go'doon sidan oo kale u geliyay magaalada Maqale, haatanna waxay u muuqataa in kooxda TPLF ee Tigreegu iyaguna dhankooda ay haatan ka geliyeen Maqale go'doon. si kastaba ha ahaatee waxaa kale oo dhanka xuduudda Eritrea laga soo sheegayaa in ciidanka Eritrea ee kaabiyay dowladda Itoobiya ay haatan gadaal uga baxeen dagaalka, isla markaasina ku laabteen dalkoodii kadib markii ay halkaasi ka soo cusboonaadeen rabshado ay ciidamada dalka Eritrea ku kala qaybsameen, isla markaasina la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay ama la rabayba in xukunka lagaga tuuro madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki oo 30 sano la soo dhaafay xoog ku haystay dalkaasi. xogta ku saabsan ciidamadaasi Eritrea ee gadaal uga laabtay dhinaca Itoobiya ama gobolka Tigreega iyo sidoo kale afgembiga la sheegay inuu ka dhicisoobay ee uu ka dhacay dalkaasi Eritrea. muuqaalkan ka xiga ayaanu idinkaga warrami doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo. inta aynu muuqaalkan la mid aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.